waxaad tahay maamulaha xarunta aqoonta gabdhaha ee Boondheere maanta waxaad qabteen xaflad qalin jabisha oo aad ugu magac tarteen xirfadlayaasha marka horta bal xirfadda iskuulka aad ku soo kordhisay qaybahay u kala baxday waqtiga aad bilowdeen bismillaahi raxmaani raxiim iskuulka xirfadda waxaan hadda kusoo kordhina ma ahan inta aan shaqada wadna way socotay laakiin annaga iskuulka marba waxbaa fahamka bini aadanka kusoo kordhayo cilaanka way baranayeen macalina u imaanay harqaanka way baranayaan quraanka way baranayaan wax walba computerka markuu secondary soo galay ardayga wuu baranayay ardayda jaamacadaha hadda computerka way yaqaanaan laakiin haddana wax naga maqnaa oo hadda nagu soo kordhaa waxay tahay in wax walba oo meesha aan activity aan sameyno inay yeelato caddayn shahaado inaan ka sameyno kii shareeco bartay uu maada shareeco loo dhamaystiro wixii ka dhiman iyo kitaabada ka dhiman uuna qaato shareeco kii xirfadda cilaanka yaqaano ee maalinta ciidda gabdhihii u saarayo oo active oo qurux badan oo naqshadii soo diyaarsado heybadeeda leh inaan dhihi karno cunugan biri ka maalin wuu isticmaali karaa shahaadada caddaynta inaan dhiibno midka harqaanka bartay inaan asagana accept dhahno oon dhahno cunugan waa u qalanyaa inuu dharkiisa tosho cid lagu aamini karo xirfadiisii cadaymaha saasa iyo markay howl ah ku jirto howshan waa iska ballaaran tahay laakiin mar walba fikiraan ugu soo zaa'iday maalin walba experience cusub aan qaadanaynay halgan dheer aan soo marnay welina taargad aan leenahay noo yaalo weli ma yoolkeena ma gaarin laakiin alxamdulilah marka waxyaabo badanna way noo qorshaysan tahay awalna qorshaa noo yaalay iyo hiigsi marka wax walba oo la barto waa la baranayay quraanka waa la baranayay maalintaan bilowna quraanka waa la bilownay xirfadda waa la bilownay harqaanka cilaan saarka sidoo kale ilmaha inta u badan way yaqaana waa la bilownay laakiin hadda kadib iyo waxaan bilownay inaan wax walba cadaymaheeda iyo dokumentigeeda iyo wixii nooga qorshan ay cad yihiin oo waa naqshad tii hore ka duwan waayo okay waa gartay marka aan soo qaadan xirfadan hadda galabta qalinjibinta mise ayay leeyihiin gabdhaha ka qalinjibiyey horta ardaydan hadda maanta ka qalinjibisay waa arday ilaa 20 gaarayso laakiin ardayda xarunta wax ku barato kala bar hadayna ahayn inta badan way barteen laakiin hadda barogaraanka inaan shahaado kooxda qalinjibisa shahaado la siiyo laga warqabo dokumentigooda loo dhamaystiro hadda aan ugu soo zaa'iday laakiin waa computer horta way dhacaysay oo dufcadooyinka dufcada koobaad iyo labaadba ma ahan arday badanaa ka horeysay ardayda saddexaad afraad inay yihiin aan jeclahay computerka laakiin harqaanka iyo cilaanka waa la baranayay wixii waa baranaa laakiin wax meel dhamaad iyo bilowla oo documenti lama ahayn laakiin waxaa hadda maanta aan ku kordhinay inay lamid yihiin computerka hadda kadibna aan kuwa xataa yaqaano aan soo nidaamino aan dhihi karna ayagana way yaqaanaan imtixaanaadkooda inta diyaarina aan dhihi karna way barteen xarumaha aqoonta aqoon mas-uulka ka tahay keliya ma aha middan degmada Boondheere waxaa jirta xarunta kale oo wiilasha degmada qaar ku tahay marka laga soo tago aqoonta kale oo iskuullada heerarkooda kala duwan formalka marka laga soo tago sida galabta ay qalinjibin inta uga dhacday oo saddexdan qaybood oo computerkii harqaankii iyo maxaa kale cilaan saarkii cilaanka gabadhowba khaas u yahay laakiin harqaanka rag iyo dumar iyo computerka waa la isticmaali karaa dhinaca wiilasha balka warnaya wallahi su'aal fiican ay weydiisay dhinaca wiilasha oo hadda sanadkii hore ardayda ugu horeysay ay ay ka baxeen iskuulka ay ka qalinjibiyeen qaarkoodna xataa ay aqoontii waayay kulligoodba ay dhaheen ma awoodno inaan guryaheena iyo waxbarashadeena sii wadano oo iskoolka noogu dhawaa markaas tafoowan ayagoo ah intan ay usoo seexdaan duruufo badan oo u gaar iskuulkaas la nool yahay hadday ahaan lahayd hoygoo yar hadday ahaan lahayd ka warqab la-aan waa dareemi kartaa xaruntan intaas leeg oo duruufo badan iyo dhaqaale yari iyo wax walba ku shaqaynayso inaan gacanta kalena anagoo indhaha isku hayna aan xarun kale ka maamulno oo hal shaqsi ee ganacsada ay lacag siiyo uusan jirin oo hal gobolka banaadir uuna ka warqabin iskuullada dowladda u tirsan wuu ka mid yahay macallimiinta wasaaradda waxbarashada siiso laakiin baahida kale uu la nool yahay labadaas boqol cunug oo qaarkood labada waalid ka dhintay oo qaarkood meelay aastaan lahayn oo guryaheena aan ku hayno haddana fahamka dowladnimadii iyo fahamka dadkeena weli baraarugooda halganka annaga waa wadnaa inta ay nala gaarto inta aan tari karno marka xaruntaas duruufo badan ay la daalaa dhacaysaa xaruntoo yar ka warqab la-aan baahidoodiyo
leeyahay macaawina iskoolkan timid kuleejadaas wax laga siiyo maanta qofkaana 5 loor oo bariis keentay kuleejadaas qaybteeda loo geeyo wax lagu maamulaayo oo naf iyo shaydaan inta lala diray ilaahay lagula saaxiibay waay alxamdulillah isha kaliya ku soconaya garabka on aad aan u aaminsanahay garabka weyn uu san jirin ku taagana waa Allah subhanahu wa ta'ala oo caruurtaas kafaala rabbi awalku bini aadanka ba haystaba quraan insha Allah ka dhigay saaqadeeda anaga noolama dirin inaa maamul kaliya ilaahay noo idmaday hawshaasna waa mid min rabbi ka timid alxamdulillah aadana ugu qanacsanaa runtii laakiin daruufo gaar macallimiin extra oo lacagtooda aanan cid siinaysa lahayna joogo oo dugsi quraan hal macallin quraan ayaga leeyihiin laba wax barto waardiye leeyihiin waxba ka qaldan nadaafadii hal sida shalay ay ku soo gaareen ilaaha og xaaladaas waa uga mahadnaqaynaa wasaaradda waxbarashada in macallimiinta yar ee tirada kooban ay wax siiyaan laakiin baahi ka duwan oo ka badan ay la nool yihiin kuwaana sidoo kale way la nool yihiin that's why Ismaaciil Cumar Geelle ma hata ka gaarto iyo madaxweynaheena gurigan looga mahadiinaysanayo madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle marka gacan saddexaad iyo gacan dawladeed u baahan intaan tari karnaa ilaahay nagu xisaabtama waxaan ka tari weyne ilaahay ba xataa ma lihin anaga marjaca u noqono oo waxaan maanta qatartaan aan la kulanay yaan u sheeganaa marjaca u noqono xataa aan dhagtooda wax u sheegi karno oo mas'uul ah oo siyaasi ah ma jiro oo Soomaaliyeed xaqiiqan ku sheega waa kuna u yar kuna u weyn waaye waxaas marka okay hadda dalkii waxa ka dhacay isbedel ayaa ka dhacay dawlad cusub baarlamaan cusub xukuumad cusub ayaa timid dhawaana miisaaniyadda dawladda la ansixiyey wasaaradaha sida gaarka loo tixgeliyo waxaa kamid wasaaradda waxbarashada oo ilaa ay hadda ku dhawaaqday wasiirkeeda uu ku dhawaaqay ilaa iyo 3,000 oo macallimiin in la qaadan doono maxay tahay maama safiyo maama nuurto maadaama aad macallimadna aad tahay maamulkana aad hayso wax badan xirfadan waxbarashada aad kusoo dhex jirtay waa maxay rajada hadda adigu kuu muuqan karta bal in xarumihii aqoonta ee wiilasha iyo gabdhahaba inay ku yimaadaan isbedel oo sida hadda xaaladooda inay iska bedelaan rajada kuu muuqanaysa mar walba horta rajo wanaagsan aan rajaynaynaa haddii ay tahay annaga dad muslin aan nahay mar walba ilaahay khayrkaan ka rajaynaynaa marka ay tahay soomaalinimana guulo badan aan rajaynaynaa horumarka special waa bogaadinayaa waa wax fiican in wasaaradda waxbarashada mar hore aan ka qaylin jirnay in ay ka duwan tahay wasaarado badan oo ay dadkii iyo waxbarashada ubadka xaquuqaadkoodii qayb ka mid ah oo ugu ballaaran laga rabo ayadana waa guul fiican oo la gaaray ayadana waa bogaadinaa waa fikir aan soo dhaweynaa wayna mahadsan yihiin xildhibaanada iyo dawladda dhammaan intii hawshaas ku mashquushay marka aad usoo noqoto maxaad ka rajaynaysaa annaga shacabaa nahay xildhibaan waxuma sheegno siyaasi waxuma sheegno inta annaga isugu keena dhifsan ka badanaa siyaasiyiinta isugu dhifsan fikirka ani aaminsanahay mid ku duwan inuu aaminsan yahay laga yaabo wasiirka waxbarashada inuu aaminsan yahay siyaasiga marka annaga budadeena gaar ay u tuman tahay waxaan ka jawaabi karnaa kaliya marka operation dhaco ama hool la qabto maxaa qaldamay maxaa sax markaas waa ka jawaabi karnaa waana ka jawaabi doonaa haddii aanan dhimanin laakiin hadda ma hor dhacay macallimiinta sida wasiirka hadalkiisa aad aan uga dheeha karnaa inay ku imaan doonin 4.5 ay ku imaan doonaan quality-gooda iyo waxbarashadooda taas waa guul fiican waaye in macallinka maxaa taqaanaa la yiraahdo oo reer hebel uu ka imaanin aad aan ugu bagnay waa bogaadinaynaa haddii aan macallimiinta Soomaaliyeed nahay waa tallaabo culus oo hore loo qaaday special in macallimiinta lacagta loo kordhiyo kale waa ka rajaynaynaa macallinka Soomaaliyeed ee maanta $300 qaadanayo hal qolo kiraan aad dareemi karto qolalka qaarkood inuu $100 ka kaco markuu qoys yahay ka sii daran tahay nolosha korontadii ay ka kici doonto ayadana $50 iyo ka badan qoyskii ay ka kacayso waa 300 dhinacna kama qoyso wiilka asaga la jaarka ee jaamacadda kala soo bixi ku aqoontaana agaasimo reer family u taagan waaye markaas uu malaayiin dabaqeen dhisanaya baadilka macallimiinta in laga gudbi doono iyo sharaf darrada meeshaas ubadka si xaquuqaadkooda u helaan macallinka Soomaaliyeed in la farxad galsho anoo u hadlaayo waliba macallimiinta Soomaaliyeed maanta waxaan leeyahay meeshaas fursadaas inaan la seegin ee loo istaago macallinka Soomaaliyeed in la yiraahdo waa mahadsan yahay hawsha uu qabta waa mahadsan yahay midka daaqada ka soo galo qabiilka lagu keenay inuu ka duwan yahay hawsheena ay hawl ka leeratay oo hawl family ahayn 4.5 na ayna ahayn haddii uu wasiirka bartaas degay wax fiican oo guulaan ka rajaynaa insha Allah ugu dambeyntii markaa waa maxay fariinta aad rabto inaad u dirto maadaama qaybihii bulshada ugu jilicsan qoftii oo asaaska nolosha mustaqbalka dalka ah
inta waxaysato fariintaan diraa waxay tahay dadkan wasiir iyo xildhibaan iyo siyaasi keliya wax walba ma maareyn karo kamana warqabi karo bulshada dad ayagaba xaalad ku jiro bruufyo lagu ilaalinayo guryahooda u xiran yahay hooyada xalaqaday agoonka la daalaa dhacayso bulshada hoose ayaa ka turjumi karto marka waxaan rabaa ayagoo shaqadoodana haysto bulshada hoose sida ay ula soco lahaayeen wax walba shaqo walba ilaaha noo dhiibay ilaahana nagu ilaaliyo cunuga caawa feebarada haysa xaruntaan aan caawa soo kormeerin barastimool aanan helin aan ka warqabin subaxdii aan dhakhtar u diray anaa ilaahay ula xisaabtama wasiir walba iyo cid walba xil hayso bulsho matalaayo family u taaganahay dhihi doono iyo Soomaaliya u taaganahay waxaan isleeyahay aniga meel loo ordo meeshas ma taagno waa meel laga ordo xaaladda taagan dhabtaane haddii aan ka jawaabo wax oo xataa qofka insaanka aqliga iyo caqiidadaba aaminsan uu yahay xilka wax loo bareeri kara maaha waxaan haynaa kuwa mentally problem noqdeen oo nafsadooda inay isdilaan qatar u jiro labadooda waalidna ay dhinteen oo mid asoo awal ka dhinta midka kalena loogu daray ama qaraxa ku dhinta ama cid had ku sababsaday loogu daray oo labada waalid ay ku waayeen duruufaha Soomaaliya la nool haddana cid ka warqabto adeerka xataa uu shaqo ku lahayn abtiga uu shaqo ku lahayn cid walba ay shaqo ku lahayn wal bulshadaas yaa mas'uul ka ah yaa wax laga weydinaa marka waxaan baa ku diri lahaa fursadaan inoo ka faa'iideysanahay maanta in bulshada hoose iyo dadka dhibka la nool aan dhag gaar u sameeyno ka maqal gaar ah haddii ahaan lahayn mas'uuliyiinta inay dhaha kor le iyo iska dhici iyo hebel waxbuu yeeshee iska bareejay iyo bahasha naga naqanin yaa lagu dimbaabin hoos la fiiriyo hoos dhiiqa badanaa lugaha loogu jiraa caqabado badanaa dareemaynaa daruufo badanaa dareemaynaa aniga intaan hadda aan hor taagan oo hooyadood iyo aabahood inteen ay guri u noqdaan lahayn oo kulaajada aan maalintii jimcada khamiista soo dhex istaagtaan haddana kow ila kowsanayaan caloosha aan marna ooyo marna aan farxo hawshaan haayo muhiimadda ay leedahay markaan ogaado iyo waxaan ilaahay ka rajaynayo waa farxaa markaan arko marka siyaasadda iyo waddanka faanka ka jiro iyo nolosha ka jirto iyo sida xaarka loo dhex yaalla runtii waa xanaaqaa niyaddaan ka ooya markaan arko qayrka iyo meesha yaalla waa farxaa marka dadkan ilaaha ku filan laakiin yaa lagu dimbaabin wax walban way la guuleysanaa haddii dadka mayeeraanka laga gaaro Soomaali waa la isku habaaraa dadka mayeeraanka codkooda aanan baxsan karin waalidiintooda iyo ehelkooda iyo aqrabadooda agoon cunug saqiira malaha siyaasi malaha nabadoon malaha dhaqan malaha waxba malaha laakiin markuu soo istaago baanalka wiilka adeerku ahay gabadha ee dad way naqanaysaa marka dadka hoose ee mayeeraanka in la iska ilaaliyo fariintaas waa dir lahaa cid walbo ilaahay wax siiyeen inay ka warqabto isbishan ramadaanka ciidihii farxadoodii waa aragnaa ilmaha qaar in nolosha ku nool yihiin dadka siyaasiyiinta cunugoodaba Soomaaliya hadii la rabo qaarkood kumaba noolaba dibaday waxbarasho u geysteen nolosha ugu sarreysay hooy maxaa ku macalaleey kuwaan marka ilaahay u yaala laakiin ilaahay u taala laakiin lagu dimbaabino xogaa bahasha waxa laga bedelaa insha